jaajuuskii Maraykanka ahaa ee bixiyey sirta nukliyeerka kadibna baxsaday. Kaga bogo muuqaalkan oo dhammaystiran. Theodore Hall wuxuu ahaa saynisyahankii ugu da'da yaraa ee ka qayb galay mashruucii lagu sameeyey bamkii ugu horreeyay ee atoomiga adduunka. 29 bishii Agoosto ee sanadkii 1949 Ruushku wuxuu noqday wadankii labaad ee haysta hubka nukliyeerka. Xilligaas oo uu Midowga Sofiyeeti qarxiyey bambadii ugu horreysay uu ku tijaabinayay hubkiisa nukliyeerka. Tijaabadaas ayaa lama filaan ku noqotay wadamada reer galbeedka sida ku xusan xog ay hayaan CIA-da Maraykanka. Sababtoo ah khubarada Maraykanka waxay markaas u maleynayeen in Ruushka uusan awood u yeelan karin soo saarista nukliyeerka ilaa laga gaaro sanadka 1953. balse arrinta la yaabka leh waxay ahayd in saynisyahan u dhashay Maraykanka oo lagu magacaabi jiray Theodore Hall uu ahaa qofkii xukuumadda Moscow ka caawiyey inay nukliyeer u samaysato si fudud, isagoo u gudbiyey macluumaad xasaasi ah. Waa run in Theodore Hall uusan ahayn muwaadinka keliya ee Maraykanka ah ee cadowga siiyey sirta hubka nukliyeerka, laakiin waxaa sheekadiisa khaaska ka dhigaya waa in uu noqday qofka keliya ee sidaas sameeyey haddana baxsaday. Marka waxaan eegaynaa sida uu saynisyahanka ku dhashay magaalada New York ku noqday jaajuus. Midowga Sofiyeeti waxay bambadii ugu horreysay ee nukliyeerka ah ku qarxiyeen fagaaro hubka lagu tijaabiyo oo ku yaala dalka Kazakhstan. Wax si iskiis ah u dhacay ma ahayn in bambadii nukliyeerka ay Ruushku tijaabinayeen ay noqotay mid leh awoodda ay lahayd bambadii lagu magacaabayay ninka buuran ee uu Maraykanka ku qarxiyey magaalada Nagasaki ee dalka Jaban taariikhdu markay ahayd 9 bishii Agoosto ee sanadkii 1945. Hase yeeshee xog aad u culus oo ku saabsan sida bambadaas loo sameeyey ayaa loo gudbiyey Midowga Sofiyeeti, waxaana macluumaadkaas bixiyey nin ka tirsanaa dadkii ka qayb galay mashruucii lagu farsameeyey nukliyeerkii ugu horreeyay adduunka ee uu Maraykanku soo saaray. Bambadaas saameynteeda waxaa Maraykanka gacan ku siinayay dalalka Ingiriiska iyo Kanada. Mashruucaas wuxuu ahaa mid sirtiisu ay aad u culus tahay, sida laga soo xigtay warbixin uu sanadkii 1945 daabacay wargeyska Life magazine. Rag aad u tiro yar oo 10 ruux ah ayaa ogaa micnaha mashruucaas uu ku saabsan yahay. Mid ka mid ah raggaasna wuxuu ahaa Theodore Hall. Wuxuu dhashay 20 bishii Oktoobar ee sanadkii 1925. Ninkan oo ahaa wiil ay dhaleen hooyo guri joog ah iyo aabe ganacsade ah wuxuu ku koray xilli ay xaalad adag ku jireen dadka caadiga ah ee Maraykanka, laakiin arrintaas kama aysan hor istaagin Hall inuu adeegsado maskaxdiisa fahmada badan. Wuxuuna heer sare ka gaaray maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. Moscow waxay xaday macluumaad ku saabsan bambadii loo yaqaanay ninka buuran ee uu Maraykanku sanadkii 1945 ku qarxiyey magaalada Nagasaki ee dalka Jaban. Isagoo aad u daayar oo 16 jir ah ayuu boos ka helay Harvard, wuxuuna ka qalin jebiyey sanadkii 1944. Fahmo badnidiisa iyo aqoontiisa dhinaca sayniska ma aysan seegin saraakiisha Maraykanka, waxayna ku dareen dad ay u kaxeynayeen xarunta uu ka socday barnaamijkooda sameynta hubka nukliyeerka. Horaantii sanadkii 1943 Theodore Hall waxaa imtixaan looga qaaday mashruuc ay sirtiisu aadka u cusleed oo ka socday xarun ku taala magaalada Los Alamos. Hase yeeshee arrinta aysan saraakiisha Maraykanku ka warqabin waxay ahayd in saynisyahankan da'da yar ay horeyba u shaqaaleysiisteen qolyo kale. Hall wuxuu xubin ka ahaa ururka arrimaha siyaasadda ee ardayda jaamacadda Harvard. Qolkii uu seexan jirayna waxaa la deganaa arday isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Safir Sakis. Sakis wuxuu ahaa wiil ay dhaleen dadkii Ruushka ahaa ee qaxootinimada ku tegay Maraykanka,
wuxuuna ahaa shuuci sidoo kale ku dhashay kuna barbaaray magaalada New York. haddaba Sakis qudhiisa ayuu ahaa qofkii midowda Sovieti u shaqaaleysiiyey Theodore Hall, wuxuuna qaaday xogta ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee uu soo gudbin jiray. Theodore Hall wuxuu sheegay inuu ka baqayay in Mareykanku keligiis uu haysto nukliyeer. bishii December sanadkii 1944 saynisyahanka da'da yar ee reer Mareykan Hall oo garab ka helaya saaxiibkii ay horay qolkaas kula deganaan jireen ayaa gudbiyey waxa loo aqoonsaday sirtii ugu horeysay ee nukliyeerka ee laga bixiyey xaruntii ku taalay magaalada Los Alamos. waxa uu markaas bixiyey wuxuu ahaa horumar laga gaaray habka loo farsameynayo hubkaas sida baan wax u gumaada. intii lagu guda jiray sanadkii 1944 waxaan ka walwalnay khatarta ka dhalan karta in Mareykanku uu noqdo wadanka keliya ee haysta nukliyeer iyo waxa ay Washington sameyn karto haddii uu qalalaase dhici lahaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Theodore Hall ayaa sidaas ku yidhi maqaal uu daabacay wargeyska New York Times sanadkii 1997 xilligaas oo ahayd 2 sano ka hor intii uusan u dhimanin cudurka kansarka. Hall wuxuu ku dooday in Ruushka oo nukliyeer helay ay xakameysay isticmaalka hubkaas. midowda Sovieti xilligaas ma ahayn cadow balse wuxuu xulafo la ahaa Mareykanka, ayuu yidhi Hall, wuxuuna intaas ku daray dadkii ka socday Soviyetka waxay si geesinimo leh ula dagaalameen maamulkii Naaziga. khasaare nafeed oo aada u weyn ayaana kasoo gaaray. geesinimadii ay sameeyeenna waxaaba suurtagal ah inay guuldaro ka badbaadisay reer galbeedka. mashruucii lagu sameeyey hubkii ugu horeeyay ee nukliyeerka ayaa sirtiisa aada loo ilaalin jiray. Hall waxay Sovietka Ruushku u yaqaaneen ninka da'da yar, wuxuuna macluumaad kale oo dheeraad ah ka siin jiray tiknoolajiyad kasta oo lagu gaari karo farsamada nukliyeerka, gaar ahaan hubka ay ku jirto maadada khatarta badan dhalisa ee loo yaqaano plutoniumka. bambadii uu Mareykanka ku dhuftay magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxay ka samaysneyd maadada plutoniumka, waxayna ka duwaneyd bambadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima taasoo ka samaysneyd maadada uraniumta. sanadkii 1950 Theodore Hall oo shahaadadiisa PhD-ga ka diyaarinaya jaamacadda Chicago ayay albaabada usoo garaaceen ciidamada FBI-da Mareykanka. fariin qoraaleed loo qoray qaab sir ama sarbeeb ah oo la helay ayaa lagu ogaaday inuu la shaqeeyo Moscow. sanadkaas kii ka horeeyey waxaa la xiray saynisyahan kale oo Jarmal ah oo ka howlgalayay xarunta Los Alamos, wuxuuna qirtay inuu sirta nukliyeerka Mareykanka u gudbiyey cadowga. hase ahaatee FBI-du ma aysan u suurtagelin inay Theodore Hall ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto. sidoo kalena safiir Sakis ayaa su-aalo la weydiiyey waxna ma uusan sheegin. ma jirin saynisyahan kale oo ay magacaabeen labada jaajuus ee la qabtay. baaritaanadii lagu sameeyeyna wax astaan ah ma aysan muujin, waayo Hall uguma uusan shaqayn jirin wixii ka dambeeyey howlgalkii mashruuca Manhattan ee lagu sameeyey hubkii ugu horeeyay ee nukliyeerka. ugu dambeyntii Hall wuu baxsaday, wuuna ka duwanaa eedeysanayaashii kale oo xabsiga qaatay ama kuwii loo daldalay dembiyo ku saabsan jaajuusnimo. laakiin weli Hall iyo xaaskiisa way u baqayeen amnigooda. sanadkii 1962 waxaa shaqo laga siiyey jaamacadda Cambridge ee wadanka Ingiriiska, isagii xaaskiisana waxay u guureen UK. Theodore Hall wuxuu howlgab noqday sanadkii 1984 waxaana la geeyey meelay isaga iyo qoyskiisa keliya ku noolaayeen. laakiin sanadkii 1996 waxaa soo baxday sirtii u qarsanaan jirtay weligiis. dadkii Ruushka ahaa ee wax ka ogaa taariikhdiisa ayaa banaanka soo dhigay sheekada ku saabsan inuu ka dambeeyey qorshihii ay Sovietka ku heleen macluumaadka ku saabsan sameynta nukliyeerka. nasiib wanaag xilligaas ma nooleen qof markhaati ka noqon karay falkii uu sameeyey.
xitaa ninkii saaxiibkiisa ahaa ee lagu magacaabi jiray safiir saxi hore ayuu u geeriyooday. waxaa laygu eedeeyey inaan bedelay jidkii ay ku socotay taariikhda, ayuu yiri Hall sida uu tabiyey wargeyska New York Times. laga yaabee inaan bedelay jihadii ay u socotay taariikhda, jihadaas oo haddii aanan bedelin sababi lahayd in dagaal loo adeegsado hubka atoomiga uu dhaco intii lagu guda jiray 50kii sano ee lasoo dhaafay. tusaale ahaan, bambada nukliyeerka waxaa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadkii 1949 ama horaantii 1950meeyadii. hagaag haddii aan gacan ka geystay inaysan arrintaas dhicin, waan aqbalayaa dacwada, ayuu yiri isaga oo si toos ah u caddeeyey inuu jaajuus u ahaa Ruushka uuna siiyey xogta muhiimka ah. ma jirin weeraro loo adeegsaday nuclear oo dhacay wixii ka dambeeyey kuwii laga geystay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki 74 sano ka hor. Theodore Hall ayaa markii dambe u geeriyooday cudurka kansarka oo muddo hayay. Theodore Hall wuxuu qabriga galay isagoo aaminsan inuu arrintaas sabab u yahay waxyaabihii dhacay oo dhan dhammaantooda. fadlan subscribe, like, share ha ka iloobin insha allah. gambaleelkana furo si muuqaaladan soo dhigno ay kuu soo gaaraan. noqo qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena.